guddi ka tirsan golaha guurtida Somaliland oo ka kooban 8 xubnood loona xil saaray xalinta khilaafka deegaanka Baladiiriye ee gobolka Togdheer ayaa maanta go'aamo ka soo saartay arrimaha muranku ka taagan yahay ka hor inta aan go'aamada loo akhriyin odayaasha labada dhinac ayaa waxa halka ka hadlay Yuusuf Cabdullaahi Awale gudoomiyaha guddida iyo xubno ka tirsan guddida oo kala ahaa Xasan Cumar Axmed iyo Xaaji Ibraahim Nuur Jiciir waxayna dhamaantood tilmaameen muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu xogayaha guddida xalinta khilaafka deegaanka Baladiiriye Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed ayaa madasha ka akhriyay go'aamada ay gaadhay guddidu gabagaba go'aanka guddida golaha guurtida waxay go'aamisay qodobada hoos ku xusan kow waxa sugnaatay jiritaanka tuulada Baladiiriye guuleed iyo hayrmaankeeda waxaase ka reeban in la kala sheegto degsiimada tuulada hana wada degaan sida labada tuulo ee kale u wada yaalaan labada reer laba in dhulka ku hareeraysan saddexda tuulo dhexdooda ay tahay xoolo daaqeen lagana samayn karin faag beero wixii hore looga oodayna waa in la baabiyo saddex in wixii waxyeelooyin kale ee hore u kala gaadhay ay ku dhammaystaan si walaaltinimo iyo dhaqankeena suuban iyo shariicada islaamka waafaqsan afar in wixii khasaare ka soo gaaray dhinaca Cabdullaahi Arab go'aankii wasiirada ay xukuumaddu bixisay magdhowgeeda oo dhan 3 barkadood qodistood iyo 2 dergadood wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay go'aamada guddida waxaana ka soo qayb galay munaasabada oo ku qabsoontay xarunta maamulka gobolka Togdheer odayaasha iyo waxgaradka dhinacyada ku muransan deegaanka Baladiiriye taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer iyo duqa degmada Burco عبد الملك شيخ موسى الدون تلفزيون قناة جمهورية الصوماليلاند برو